كلي شقة أبوركو وحكو حرية هي هرت قفك هفكر كيس إنه قفك entrepreneur نقول كرا أو يعني وجود اللي هي إنه كان هفكر والله عكو الصمين كرا مركا كلي ومهم الموضوع أورن كرنا قفك استوى جامعات كصباح entrepreneur بنقول كرا ويتسوى حكو حرنت هاي قفك هفكر كيسة قفك يعني هي قف يعني creative أنت بدنا جامعات creativity مكوريان لكن creativity waxa laga dhaxlaa ee Korea waxa weyn waa deegaanka inuu qofku fahmo environment-ka ku hareeraysan waxa ka socon karaya ugu macquulsan kulay ardaydeena aqoonta leh inta way u bixin laazim wax soo bartay laakiin waxa ugu muhiimsan ka sii muhiimsan waxa soo dhan waxa weyn iyagu fahmaan deegaanka ku hareeraysan iyo waxa ka socon karaya iyo noloshan ay ku nool yihiin laftigoodu sida ay u socoto taas waxay ku dhalinaysaa inay yani creativity-gooda ama hal-abuurnimadooda kor u kacdo taas oo keeni karaysa inay chances ka dhex faa'iideystaan ama fursado ganacsiyo wadanka ka dhex socda inay ka dhex faa'iideystaan sidoo kale bulshada dawladda laftigeedu qayb ay ka qaadan kartaa iyo wax qofkii hadduu fikirkii hayo si aanu lacag haynin way yar adag tahay inuu ku dhiirado ama uu qabto dawladda laftigeedu markaa waxay ka qaadan karaysaa qayb ah in ay dhiirigeliso fikirka dhalinyarada ay ka qayb qaadato oo dhiirigeliso waayo qofkii markuu fikir la yimaado wuxuu u baahan yahay in la baritaaro at least lagu baritaaro kharash lagu baritaaro ama dhiirigelin marka dawladda laftigeedu inay sameeyso barnaamijyo ay ku dhiirigelinayso dhalinyarada hal abuur kale taas marka waxay keeni kartaa in dhalinyaradii kalena soo dhiiridaan sidoo kale su'aashan weydiisay ma sameyn karaan ardaydeena ka soo baxday jaamacaduhu shaqo abuur way sameyn karaan laakiin waxay ku xiran tahay qof kasta iyo fikirkiisa sidoo fahansan nolosha isaga ku xiran